Shabeel aad u gaajaysan ayaa la kulmay deero markaa dhashay. Shabeelkii ayaa si halhaleela u soo wajahay deeradii oo weli dhexda kaga jirta marxaladda xanuunkii foosha. Laakiin waxay go'aansatay inay nafteedii la baxsato. Cabsidii ayaa ka awood badisay, taasoo ku qasabtay inay ilowdo ilmaheedii yaraa oo markaa uun arkay iftiinkii dunida iyo bahal dadcuna oo dul taagan. hase ahaatee Allah raxmaanka ah ayaa naxariis ku shubay qalbiga shabeelkii halista badnaa. durba shabeelkii ayaa go'aansaday in dhashii yareed ee deerada aanu wax dhibaato ah gaarsiin. wuxuu ka qaaday goobtii si uu uga badbaadiyo halis kale oo kaga imaan karta duurjoogta kale. shabeelkii ayaa ahaa mid ilaaliya oo quudiya dhashii yareed ee deerada ilaa markii dambe uu agtiisii ku weynaado. waa raxmad iyo naxariis aan badanaa lagu arag basharka maanta jira. wuxuuse Ilaahay ku soo dejiyey mid ka mid ah xayawaanada ugu halista badan si ay noogu noqoto cibro qaadasho. walaal dhamayso muuqaalkan oo ugu dambeyn subscribe dheh bartan YouTube-ka ee Idaaja Media oo aad muuqaalkan ka daawanaysay. aad baad u mahadsantihiin.